بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan qaadanaynaa quadratic equation part 3 qaybta saddexaad waa marka ku darta ay soo horeyso ka jartana ay dambeyso. positiveka horey ah, negativeka gadaal ah. sida caadiga ahayd waxaa nala ka rabaa laba tir oo markii laisku dhifto keenayo 28 ama 28 markii la kala jarana keenayo 3. labadii qaybood oo hore waxay ahayd qaybtan dhexe waxay ku imaanaysa isku dar. hadda qaybta dhexe waxay ku imaanaysaa kala jarid ama kala goyn. laba tiraan nala ka rabaa isku dhufashadooda 28 markii la kala jarana 3. okay, tirooyinka keeni kara 28 markii la isku dhufto bal aan qorno. hal lagu dhuftay 28 waa 28, laakiin hal laga jara 28 ama 28 haddii hal laga gooyo waa 27. marka nama anfacayso, annaga 3 rabnaa, marka tan suuragal maaha. haye 4 lagu dhuftay 7 28 waaye, laakiin 7 haddii laga jara 4 3 waaye, midana na anfacayso. markii saasaan u ogaana labada tiro inay kala yihiin 7 iyo 4 inay yihiin, waxaa nala ka rabaa calaamadii. haddana qaabkan calaamadaan u dooran lahayn marka aan fiirino. haddii aan 7 siiya minus, tirada weyn haddaan siiya ka jar, tirada yarna haddaan siiya ku dar, maxaa soo baxaya? kala goyntooda waa 3, ilaa 2 calaamoo kala duwan waay. laakiin calaamadda la qaadanayo ansarka jawaabta waxay noqonaya calaamadda tirada weyn, marka minus ay noqonay. tanna nala kama raba, annaga positive aa nala ka rabaa. u kala bedel calaamadaha marka. tirada weyn waxaa siisaa positive, tirada yarna waxaa siisaa negative ama ka jar. waxaan helaynaa positive 3 waa midaan u baahnayn. marka waxaanoo dhan ma shaqaynayaan sida saxda ah waa 7 ku dara iyo 4 oo ka jar ah. aan ku bedelno marka, aan ku bedelno. waxaan leenahay midaan iyo calaamadeeda ma taabanayno, x squarekana ma taabanayno. midaana waxaan ku bedelaynaa intaan. see ugu bedelaynaa? waxaan leenahay 4x xaan raacinaynaa 4 iyo plus 7x intaasaa keeni karta plus 3x. aan ku bedelana marka intaan x square minus 4x plus 7x minus 28 laba isugu xir. inta x ay wadaagaan ka saar. inta 2 x oo laysku dhufto waa hal banaanka haddaankii halaa hare. inta x u qaybi x isu baxay 4 soo hartay. calaamadan dhigo. labadan tiro kii yar banaanka geey. 7 yar 7 banaanka geey. inta 7 u qaybi 2 7 oo isu baxeen x soo hartay minus 28 7 u qaybi waa 4 ama 4. labadan bracket oo isku egyihiin mid tuur, midka kale sidiis u soo qor. x plus 7na isku xir. ardayow qaabkaas ayay jawaabti noqotay x minus 4 iyo x plus 7. exampleka labaad waxaa nala siiyey x square plus 2x minus 15. okay, sida caadiga ahayd laba tiro oo markii laisku dhufto keenayo 15, markii la kala jarana keenayo 2. tirooyinka keeni kara isku dhufashadooda 15 waxaa ka mid a hal lagu dhufto 15 waa 15. hase yeeshee 15 markii laga gooyo hal waa 14. annagana waxaa nala ka rabaa inay noqdaan kala goynta 2, marka kan suuragal ma aha. waxaa kaloo keeni kara 3 lagu dhuftay 5 waa 15. 5 markii laga gooyo 3na
ولبو وصح على مدي أنك لسينو على مدى بلاسك أمر والبوحة قادنا آية تيرا وين دي على مدو إسيدين أو بلاسك سوري ماينس كان دنبي أنسينا مرك على مدى ماينس كان وحا قادنا آية سدحنا على مدى قدرتا أما بوستيف كان وحا قادنا آية تيرا وين كان إكس راعي كان إكس راعي إنتان أيا وحن كو بدلنينا إنت كان مع العلامة دي سما تابانينو كان ما تابانينو كو بدل مرك اكس سكوير كو بدل ماينس 3 اكس بلاس 5 اكس ماينس 15 لبا يسوغو خير اديغو علامة بنانكا جيناي لبدا waxay wadaagaan x inta laba x oo la isku dhuftaa keena x square mid hadda banaanka u saara hal haray minus 3x marka x loo qaybiyo labada x waa isu baxayaan way isku cancel maayaan saddexa soo hartay balaaskan dhig labadan marka aad timaado mar walba tirada yar banaanka geey 5x haddii 5 loo qaybiyo ama 5 haddii 5 loo qaybiyo labada 5 way isku baxayaan x haray minus 5 u qaybin waa 3 x minus 3 x minus 3 mid saar mid tuur mid soo hartay qor x plus 5 na isku xir jawaabtina la ka rabay waxay noqonaysaa x minus 3 iyo x plus 5 cashirkeenni maanta oo aan ku soo qaadanay quadratic equation part 3 oo ah markii positive-ku uu soo horeeyo negative-kana uu dambeeyo ama markii ku darta ay soo horeyso ama ka jartana ay dambeyso intaasuu noogu egyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.